arrintaas oo aad iyo aad u xun ummadda Soomaaliyeed qabiil kaliya kuma xiriiri jirin dhaqamo aad u fara badan qabiilkuna wuxuu ahaa saldhigga system buuna ahaa dhisan systemyada adduunka isku maamulaan ka mid ah wuxuuna jireen dadka Soomaaliduna ma ahayn dad xumaan iyo isdil kaliya ku salaysan waxaana tusaale idinka ah in ummadda Soomaaliyeed aysan abtiris kaliya wax isugu ahayn inta maamahooda ay leedahay tusaale jir walaal ma ahayn jidin baa walaalaa oo di abka dhow wada dhalasho wadaag dhaqan wadaag baa dhaamo niman reer abtigiga rabaa nacay waxaas oo dhan waxay muujinayaan maamaayo muujinayaan Soomaalidu waxa ay isu tahay aysan abtiris kaliya ku salaysnayn waxa kale oo jira oo muujinaya maamaayo fara badan ummadda Soomaalida geesinimadeeda iyo calool adaygeeda iyo kartideeda waxa tusaale ka soo qaadaya geesi alla ma xiro rag waa calool adaygu waa Ilaahay wehelkiis dad yaraana duulaan loogama haro duulo yaraana deeq loogama haro su'aashu waxay tahay sharaftaas iyo geedadayga Soomaalidu lahayd yaa ku sifoobay jamhadda oo NLF ku sifoobay ayada oo la raadinayo oo gobol kasta laga qabanhayo oo mataqaana mabdii xurnimo doonnimadu dambi u ahaa cidda kaliya oo adkaysatay waa baaba'deen guusha Ilaahay baa bixiyay hal iyo laba siiya maya waxba ma ahan maanta inta ma jirto oo NLF ma jirto waa jirta annaga taagan oo NLF waa hal qabiil ma aha annaga ah habeen iyo maalin doodaas maxaa la xakaa koosgareeyay waxaa doodaas koosgareeyay dagaalkii u dhaxeeyay geeska Afrika jamhadda TPLF oo u taagneyd Tigray Liberation Front iyo NLF u taagneyd Ogaden National Liberation Front ayaa